السلام عليكم كلاتو عنا وناكسن meel kasta oo caalamka joogtaan soo dhawaada mowduucan kooban aan ka hadlaynaa cuntooyin kasta oo qof kale kaas calooleedka sida ku aragtaan muuqaalka iga sarreeya waxaa la soo jeediyaa tirey cunto in qofku iska ilaaliyo ama uu ka fogaado cuntada koobaad waxay tahay sida digirta iyo sidoo kale masagada maadaama ku jiraan fitamiino u baahan in waqti dheer u dheefshiidku burburiyo taasina waxay sabab u qaadaysaa in ay si fara badan la soo daayo taas oo hoos ku ah caafimaadka qofka qodobka labaad wuxuu yahay in qofku iska ilaaliyo ama uu joojiyo gabi ahaanba cabitaanada sida soodaha oo kale iyaga laftigooda waxaa ku jira carbonic acid taasina waxay halis ku tahay caafimaadka qofka iyo gaar ahaan marka laga hadlayo qof kale waxaa loo yaqaano gaas calooleedka qodobka saddexaad wuxuu yahay cuntooyin kale dufanka ama duxda aad u sarreysa cuntooyinka saliid ku badan tahay sida baradhada la shiilay sidoo kale cuntooyinka loo yaqaano fast foods dariiqada lagu iibiyo iyaga laftigooda wax sare u qaadi karaan acida maadaama dib u dhigayaan waxaa loo yaqaano dheefshiidka caloosha iyaduna waxay keeni kartaa in acida markaa calooshu ay sare u kacdo ama ay badato ugu dambeyntii waxaa la soo jeediyaa in qofka iska ilaaliyo qaar ka mid ah midhaha la cuno sida tufaaxa iyo sidoo kale liinta iyaga laftigoodu waxay sare u qaadi karaan acida si haddaba qofku iskaga ilaaliyo ama hoos u dhigo gaas calooleedka waxaa loo soo jeedinayaa inuu cuno cunto fudud taas oo marka wax dhibaato u keenin dheefshiidka tani kula dambe nabadgelyo.